Asalaamu calaykum saaxiibayaal daawadayaal dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaa idin leenahay ku soo dhawaada sheekadii dhowaanahanba aan wadnay balse xakad yar oo naga galay u dhaxaysay taariikhda dhalinyarada hormuudka u ahaayeen Israel. Taariikhda sidaad hore u barateenba tabinta diyaarinta soo jeedinta waa anigoo ah saaxiibkeen Xuseen Maxamuud Xuseen Yare. In dhowaanahanba waxaan u badinin dhanka jacaylka barnaamijyadana inta badan maadaama caqabad yar naga hor imaaday. Markan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada qayb ka mid ah hubinta Israel ninka lagu magacaabo Usmaan Geedi Raage. subscribe like share comment si asxaabta us arkan hana ka hagari waad ku maasantahay. Usmaan Geedi Raage wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1925 wuxuuna ku soo barbaaray gacanta labadii waalid ee dhashay. Yarantiisa ku bartay Qur'aanka Kariimka iyo mawaadiida sharciga Islaamka. U gaaray daacadda waxbarashada dugsiyada ayuu ku biiray dugsiga hoose uu gumeysiga Talyaaniga lahaa kuna yaali magaalada Muqdisho wuxuuna ku bartay luqadda Talyaaniga. Usmaan Geedi Raage wuxuu bilaabay inuu maareeyo nolosha qoyskiisa isagoo ka soo jeeda qoys shaqada iyo wax soo saarka aad u aaminsanaa. wuxuuna lahaa gaari weyn oo badeecadaha u kala goosho gobolada dalka. Ismaaciil wuxuu ahaa hubinta shanaad ee aas-aasiyaasha Israel wuxuuna saaxiibadiisa la wadaagay dareenka wanaagsanaa ee keenay soo bixinta xisbiga ay dhalinyarada hormuudka u ahaayeen. Waxaa la sheegay in habeenada ka mid ah Usmaan Geedi Raage iyo saaxiibkiisa Daahir Xaaji Ismaan oo baar ka wada casheynayeen iyagoo howl xisbiga u lahaa u degdegsanayeen fuuleen gaari u watay nin gumeysiga ka mid ahaa ka casheynayay. Markii uu ninka dibadda u soo baxay oo isiri gaariga kaxay ayuu arkay labada nin oo gaariga saaran. waxa ay ninka u sheegeen in ay degdegsan yihiin oo uu kaxeeyo meesha ay doonayaan. intay ninkii u mirdarsoomay ayuu si cara leh u faray inay gaariga iskaga degaan wuxuuna u sheegay inay gaarigan loo ogoleen dadka madmadowga ah alla in badana oo ay gaariga wasaqeeyaan. Ismaaciil iyo Daahir ninka doodiisa dhigdalaq uma aysan siin waxay ku adkaystay inuu kaxeeyo halka ay doonayaan. markii la ismari waayay oo doodii daba dheeraatay ay arrintii booliska soo farageliyay waxayna arrinta u gudbiyeen gudoomiyaha gobolka waxaana ninkii gaariga lahaa loo xukumay inuu Ismaaciil iyo saaxiibkiisa Daahir geeyo halka ay doonayaan iyadoo ninkii Talyaaniga ah loo sheegay inay gaadiidka dadka u siman yihiin aysan baraaneen midib kala sooca haddii kale oo dalka iskaga baxo. dhacdo astaan u ahaa wadaniyada labadan saaxiib ee Ismaaciil iyo Daahir. ugu dambeyntii sanadkii 1956 ayaa Usmaan Geedi Raage loo magacaabay qaybta maaliyadda ee eemiska bulshada ilaa markii dambe uu noqdo xubinta ugu sarreeya xafiiska. saaxiibayaal dhegeystayaal daawadiyo way ku mahadsantihiin daawashadiina.